maantay waa maalin kale weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo caasimadda u ah fursad weyn u ah maadaama aan joogno degmada Hodan gaar ahaan jidkii degmada Hodan ugu mashquulka badnaa oo jidka Taleex oo ahaa jid aad iyo aad loogu dhimanaa inuu saakay duqi magaalada iyo gobolkii oo wada dhamo halkan ay wada joogaan duqi dhagax dhigo aad iyo aad aan rabnaa inaan uga mahad celino gudoomiyaha degmada iyo shacabka degmada Hodan iyo dhammaan maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed ayagoo iskaashanaya inay gartaan in gobolka ay garab istaagaan barnaamijkii $1 dalkaada ku dhiso iyo iskaa wax u qabso iyo garab istaagii intaas oo maaragtay iskaashanaya in maanta halkan la dhagax dhigo oo duqi uu dhagax dhigo fursad weyn ayay u tahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan iyo bulshada jidkan isticmaashana fursad weyn u tahay badana gudoomiye jidkan wuxuu ahaa jid aad iyo aad cariiri u ah xaqiiqatan gaadiidkuna uu isticmaalo waliba gaadiidka ka soo baxa dekada ayaa aad iyo aad u isticmaali jiray marka waxaan hubaa maanta dad badan oo Soomaaliyeed inay aad ugu farxi doonaan gaar ahaan gaadiidka waaweyn dadkii wadi jiray ama darawaladii ama maaragta ganacsatadii inay aad ugu farxi doonaan waxaan isleeyahay maalmihii la soo dhaafay jidadkan la dhagax dhigaya isdaba joogay ahaayeen horana deewaanigii u sheegayo ma ahan waxaanu wax ama la iska sameeynayo ama iska keen ah ama iska yeel ah waa wax qabad dhaba oo horay looga bartay duqaan iyo maaragta ragga saaxiibadiisa intaba oo ay Soomaali xataa tuseen in jidadka la dhisi karo anigu hadda wuxuu yiri ma ogtahay cali duqi waxa la rabaa maaragta in jid loogu magac daro waxaan ba ogaaba jidkii kow uu duqu dhagax dhigi jiray oo buulaxuubay madaala la dhihi jiray jidkaas marka mid kalena waa mudan yahay xaqiiqatan in maaragtay loo bixiyo marka gudoomiye ku soo dhawow fursad weyn u tahay dadkan gobolka Banaadir oo dhamay fursad u tahay waxay fursad u tahay ganacsatada Soomaaliyeed oo gaadiidleyda waliba oo jidkan isticmaalayay iyo quruxda magaaladaba jidkan fursad weyn ayuu u yahay horay ayaanu sii socod doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo mashruucii $1 dalkaada ku dhiso waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan inay ku garab istaagaan maamulka gobolka Banaadir maxaa yeelay mashaariicda noocaana iyo kuwa ka waaweynba waxa lagu fuli karaa waa mashruucaas iyo isgarab istaag waa degmada Hodan si gooni ah rabaa inaan ugu mahad celiyo